haddaba waa sidee xaaladda caawa ee magaalada Muqdisho kadib dagaal aad u qaraar oo gelinkii dambe ee galabta ka dhacay guriga ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre oo ka degan yahay magaalada caasimadda Muqdisho. waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo halka caawa la kala joogo. soo dhawaada daawadayaal, taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 2 bisha waa markaas 6aad ee sanadda 2020. haddii aynu ku horeyno dagaal aad u qaraar ayaa gelinkii dambe ee waliba galabta waxa ka dhacay guriga waa markaas ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre oo ka degan yahay magaalada caasimadda Muqdisho. dagaalkaasi waxa la soo wariyay in khasaare kala duwan uu jiro, waxaana hadda wararka qaar ay tilmaamayaan in ciidamo xooggan ay dawladdu u daabushay halkaas uu difaac adag ka galay ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre. odayaal dhaqameed ayaa kula sugnaa guriga ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre oo ka degan yahay magaalada Muqdisho, waxaana halkaas ka dhacay dagaal aad u qaraar iyadoo ciidamadiisa taabacsanaa ee mucaaradka ay dib isaga caawiyeen ciidamo markaasi ka socday dhanka madaxtooyada Soomaaliya oo weerar ku qaaday guriga uu degan yahay ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre. dagaal in ka badan muddo 20 daqiiqo socday ayaan halkaas ka dhacay, waxaana la soo wariyay in markaas uu jiro khasaare kala duwan. wixii inta ka dambeeyay waxa degan xaaladda markaasi caawa ee magaalada Muqdisho iyadoo ciidamo xooggan ay ku sii qulqulayaan aaga ay mucaaradku markaasi fariisimo ka sameysteen, kuwaas oo doonaya in berri waa beriga hore ay markaasi barnaamij weyn ku qaadaan magaalada caasimadda Muqdisho, kaasi oo kaga soo horjeedaan dawladda xilligan waqtiga gabaabsi ka yahay ee hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud. sanadii 2000 waa markaas 2020 xilligan oo kale waxaa la weeraray guriga uu deganaa madaxweynaha hadda talada haya markaas waqtigu ka dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud. caawana waxa uu weeraray saaxiibadiisii hore ee markaas mucaaradka si lahaayeen xilligii Farmaajo joogi jiray waa filada Soomaaliya. ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre ayaa dagaalka ka hadlay, waxa uu sheegay in cid waliba ama markaas meesha ku dhaawacantay ama wixii khasaaro halkaas ka dhashay oo dusha saaran doono ciidamada Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu sheegay in ciidamo hubeysan ee markaas soo weerareen guriga uu degan yahay ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre. dhanka kale madaxweynaha ku meel gaarka ah Jumhuuriyadda Toddobaad ee markaas dawladii ku meel gaarka ah Shariif Sheekh Axmed ayaa isaguna dhankiisa warqalaha uu soo sheegay, waxa uu sheegay in la weeraray ra'iisul wasaare hore ee dalka, mas'uuliyadda weerarka ay qaadan doonto dawladda federaalka Soomaaliya, waxa waliba halkaas ka dhashanay ee markaas qaadan doonto dawladda horkacay Xasan Sheekh Maxamuud. mawjado iskhilaafsan ayaa caawa ka jira gudaha Soomaaliya. mucaaradku markaas ciidamo xooggan ay la soo baxeen, beelaha qaar ayaa taabacsan dhanka mucaaradka, halka dawladdu ay hubabka iyo wixii ugu dambeeyay ee markaas ku doonayso inay kula wareegto gudaha Muqdisho ee halkaas ka socdaan. magaalada Muqdisho waa markaasi xiisad cakiranaya caawa ka jirto. mucaaradku bari waxay doonayaan in barnaamijyo ugu dambeeyay ka qabtaan, halka dawladdu ay doonayso in aan barnaamij una ka dhicin 3 goobood kaliya ay u aasteen, waana garoonka Injineeriso iyo garoonka jaamacadaha iyo garoonka waa markaasi Ex-Conis ama lagu magacaabo. waxayna sheegtay dawladdu saxaafada ay soo saartay in 3daas garoon loo ogol yahay mucaaradku barnaamij ku qabsan karaan, hubna aan la gali karin. hase ahaatee wixii inta ka dambeeyay mucaaradka ayaa ka dhaga furaystay, waxayna sheegeen in barnaamij ay doonayaan inay gibahaan bay ku qabsadaan magaalada caasimadda Muqdisho. dawladdu waxay doonaysaa inay hub iyo gaadiid ciidan iyo markaas dagaal ay kala hortagto xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya. odayaal dhaqameed ayaa ku sugnaa guriga markaas caawa la weeraray oo Shariif Sheekh Axmed oo ka degan yahay magaalada caasimadda Muqdisho. xiisadu wali way cakirantahay, waa la soo taagan yahay, markaasina mar waliba dagaal ayaa qarxi karo oo u dhaxeeyo xubnaha mucaaradka iyo markaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya. dagaalkii in ka badan markaasi 20 daqiiqo galabta socday ayaa ciidamadu dib u kala gurteen. ciidamada dawladda ayaa dib u laabtay, walow markaasi muuqaalo baraha bulshada ku faafay ay markaasi muujinayaan in dawladdu ay gurime kala duwan ay helayso oo ciidamada ku sugnaa jambootiyada magaalada banaankeeda ay markaasi ku soo qulqulayaan gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. haddaba waxyaabaha ka soo kordha halkan ayaa si joogto uga daawan doontaan dagaalada markaasi ka soconaya Muqdisho iyo xiisadda cakiran ee ka taagan gudaha dalka. aad baad u mahadsantihiin. muuqaalka meel fog gaarsiin naguna soo biira si aad u heshaan xogii ugu dambeeyay naga soo gaara gudaha Soomaaliya.